masaladii xalay ee ku saabsanayd heesta aynu khulaasayno kadibna aynu ka soconno. masalada heesta la yidhaahdo ama waxaan maansada la yidhaahdo waa magac guud oo shay bannaan iyo mid aan bannaanaynba ay soo hoos galaan. culammada muslimiintu khaasatan salafu saalix quruntii khayrka badnayd culummadiisii saddex bay u qaybiyaan waxaan maansada ama heesta la yidhaahdo: mid bannaan iyo midaan bannaanayn kaan bannaanayn bay laba qaybood ka dhigaan, marka saddex waaxood buu noqonaya. qaybta koobaad waa taxale inuu ka hadalay oo waxaan loo yaqaano maansa hawleedku waa shay bannaan. maansa hawleed baa la yidhaahdaa. marka beerta ninka hawl qabanaya qolyaha mujaahidiinta ah markay iscaraabinayaan xoogo bay qac ka siiyaan. maansadaas loo yaqaano maansa hawleedka jiijiid badan ma laha, laxan ma laha, miisig ma laha, xumaan dadka looguma yeedhayo, waa shay iska bannaan cinda ahli اlcilm. xalay waxaynu soo marray kalxudaa'i waannasbi, taas marka waxaa loo yaqaanaa hina bannaan. ruuxa bini aadamkeen fitradiisa lagu ciyaarinna wuu kala garanayaa waxa u dhexeeya maansa hawleed iyo heesta la yaqaanay caadiga ee hebel waa fannaan waa heesaale leh. ninka hadda geela shubanaya laba sac laga yaaba ama intuu duhurkii fadhiisto ceelkiisu intaa u shubahayo in gabalka ugu dhaco intaana maansa uu tirinhayo la odhan maayo waa heesaa. geel jiro miskiin oo geeliisa waraabsanayn baa loo arkaa. ninkii saaka aroortii ku kalahay beere intaa falhayay ee gabalka ugu dhacay intaana heesahaya caraabinaya dadka beerta jebinaya looma arko inuu yahay heesaa iyo fannaan. marka waxa maansa hawleedka loo yaqaan ee carabna u yaqaaneen xudaa'u lacraab ama khinaa'u lacraab la odhan jiray salafkuna ka hadleen waa bannaaya hadduu ka badbaado edabdarro in layskugu yeedho ama axad bini aadan lagu dulmo lagu caayo. nooca labaad asagu waa xaaraan, laban uga qaybsamaa. waa khinaha loo yaqaano waa maansada heesta la yidhaahdo ee leh laxanka, ee leh isjejebinta, ee leh iswalaaqidda iyo edabdarridaad garanaysaa. isqaawan warkeeba jooji. khinaha noocaasa asagu waa xaaraan biijmaaci culamaa'i اlumma. waxa hadda heesta u taqaanaan iyo fannaaniinta aad tidhaahdaan iyo hebel waa fannaan waa heesaa aad tidhahdaan hawshay ku howlan yihiin waa xaaraan, waana masale ijmaaciya, khilaafna ma laha. wadaad dambo asagu iska soo rucleeyo xiiqsan oo hawl meel kaga go-an tahay ha ku lugi. alimaam cumar bn cabdilcasiis yaa ijmaaca guuriyey, imaam maalik baa soo guuriyey, shaafici baa guuriyey, axmed baa guuriyey qabla an yukhlaqa ibnu xasm. ibnu xasm iyo khayrkii intaan la abuurin, walaa ibnu طaahir alqaysaraani suufi almulxid aan la abuurin, ayaa a'immatu ahli اlcilmi guuriyeen oo uu ka mid yahay alkhaliifatu اraashid kow ka yahay maalik imaam ahli sunna, shaafici oo la yaqaano culummada ugu adag inay ijmac guuriyaan inuu yahay oo weliba ku naqdiya dadka ijmaaca guuriya ku naqdiya. axmed baa guuriyey 31 caalim baa ijmac soo guuriyey. 31 caalim baa ijmac soo guuriyey. marka wadaad dambe warkiisu iska yahay khalad galay ama ijtihaadoo gafay laguma lugo oo masaladaa marka masale muran lama ah. heesta laxan kale ee isjejebinta leh ee edabdarrada wadata ee nin weyn dhaqankii aan ahayn ee lagu yaqaana dadka fasaqada ah caanka u noqotay heestaas waa hees xaaraan, waa in bannaanka laga maro. ninka sameeyana waa faasiq, markhaati ma galo. kii kaag dhowaa wixii laga shaqaystana waa xaaraan, laguma xajiyi karo bal waa laguna cadaab mudanaya. qaybta labaad waa qaybta loo yaqaan oo qaybta xaaraantaa ka mid a. haddii si guud loo fiirina waa qaybta saddexaad, alghinaa asuufi ka la yidhaahdo wey. alghinaa asuufi
heesta iyo maansada iyo xatrada iyo nasrada ay qaadaan qolyaha dariiqooyinka ah ee durbaanaha garaacda iyo kuwan hadda alxaq balaaza loo fadhiyi la yahay tu alifka taadka wax ka dhacama suma taqaanaa midda iyaduna waa xaaraan weliba tahora iyada ka liidata ninka fanaanka muqanniga ah ee heesaaga ah inuu xataa khaldan yahay uu isog yahay wuxuu inaysan fiicinayn waa isog yahay nafta naga baratay waa balwad waa ku soo korray xogo mushaaru ka raadinaya laakiin kuwan aafadoodu waxa weeye shay macsiya ah bay ilaahay ugu dhawaanayaan qurbo iyo diin iyo cibaado iyo alla dhawaashay u arkaan walidaalika bacdu culamaa ilumma waxay gaadhsiiyeen ninka nasrada iyo xatrada iyo ghinaaga suufiga ah qurbo iyo alla dhawaasho u haysta waa gaal bay yidhaahdeen wadaad xanafiga kitaab ka qoray oo hataa aan shuqul ku lahayn salafiye iyo sunniye midnaba maaturiidi ah oo ku takfiiriyey قرطب أبو العباس صاحب المفهم وكل كشف القناع كتاب سلة يهذا في مسألة السماع إنه تكفيرية حام حول تكفيرهم لكن موسى تصريح أبو حامد الغزالي نيو ولا الكيئة وأحمد بن محمد الغزالي الأورنتري كتاب وقراءة سوق الصوفية وحوليه إنك إذا حضرتهم مبنى وقال وفي رصادة نين وحوكي إنك برنايستي الدين كدك وقال أصلا حور إنك يعيد هذا وقال وحان مركا واحد دنبول وقول له قاي شافعي مركا هذا كهالليان فقه شافعي كتبت شرح ايان منهاجك iyo kutubta fiqiga shaafiicida ninka ugu hadal xun ugu liita waa Ghazali imaamka arteen cadiimka ah ee usulka imtixaanka ku aaya meel walba soo taabtay markuu baabkan marayo waa adcafu an-nas kalaaman fi hada al-bab lianna maxaa yasaa ku fidnaysna saa ku fidnaysa ibn Hajar muxuu yiri wadaadku wuxuu ku fidnaysan yahay fatwa laga ma weydiiyo xageebo ka qaatay xadiidka markuu sharxayay kadaba Abu Sanabil ibn Ba'kik حديثك كفيريا في الحبارية وإذا أصغر ربض عنا شيخه بالربض كور هذا ترى محقوله لا بأس لا بأس نور الشباكش لا بأس مد أصغر هوانك مرح تكون مهرية وملها سكبر دغليستا هذا ترى مسافة إيو إسلانا ويله شيخه بالكور محقوله المسألة خلاف الله كانوا واصل ما يسكوا كله وذاك وحكوا آفيسين هاي والله يسكيل عليها اللهم إن الدليل عض يورعض كو أرقتها دمر كان الناس وطاقرا مويين مسائل كاجتهاد كودات كو حكوها في سنة ولا قفق هذا مسألة مركا الغناء الصوفي قربئية لو دواشا لقد دقتي اللحن كله الدربان كله المرقان كله لقود شط بودي تقانان واجا أنه أن حترين شري أن اسمودي شرادان دعوين إن إلهي اكتسحوا أن نقول هاي وإذا هذا والنور ونقيري أنا كم مقل يا هبينك جمعها يا هبينك أربعة أبو حقسم نقدر إن نحطرينه هديك أرورتاس كتاب يدين آخر ما هي عربي إنه آخر جري نحوي يصرف إنه آخرني هبينك جمعها وين نحطرين إنسان دريامة إنه قبلهم مش حراض هيان يدرموزك يفوح صدى ومرها يو واجا أكتيسة بانكو كلا دريرينا هذا يساعي إنسان دحين صبت صوص عطا 10 ما جيرو هبينك أربعة سداس وكلي أهي نينك هبينك ما كان لحثرين هي باشا الله وضعان مرقامين دعينا نشطبونين عصوارك منافق فاسق نين قلبي يسئين جيجين هاي قاسية قلوبهم مجرم بسوارك إلى واجد ذنب أنا ما أرك لكن أركيبه يجشكي حول وداد بمركي نفط قبطي وجدبون واي يومالك هبينك الدنبا يضع حضرين استوري كشكاش كي لقو فرديي يا ماشي اللي فرديي جيد وين الدقب اللي لقو عليه كشكاشكا يبرتها له هاي ديجي بفاني هاي عباد بقف كفرتي استوى ولا عر هدو جد بيسوي مرقانسي waxa ku dhacay muusan garteena moogta waa nin isdana sacay bal iska dhig in marqaansan marka midka asagu xaraamnimo waxa u dheer waa xaraan diin laga dhigtay بعض اهل العلم wax ku takfiiriyeen ba ka hore fanaanadu iyo fasaqadu qadana waa dhaqan fasaqo iyo mujrimiin asna waa diin la labada noocba culimadu ijmaac bay soo gooriyeen inuu xaraan yahay
كوسي ديران ما يكتب بدن بالغ قري عركوا معاصرين كتب بدن بيك قرين سلف كتب بدن بيك قرين حق فقهاء واوين نينك ugu horeeyay masalada ka hadlay kitaabka qoray Shaafici way Abu Tayyib al-Tabari Abu Ishaq al-Shirazi sheekhiisi ninkii zamankiisi la yeeyay xalqadiisa waxa fariisan jiray 500 faqih min shatta al-madahib في كل جمعة وحولها حلقة للمناظرة واحد انت امنزنو ننت دعي وعلمي كوب حل ديرادي وحر كعي عركواء واجد مركو دقوبو 9 دور بو كدنتي او 7 ميلها سو غاري وحول وحي مناظرة وحان وكيشه ardayga Abu Ishaq al-Shirazi ninkaas hawsha qaban jiray barka wadaadka kitaab ku qor waa madbuuc risaalada akhriya asaga iskale shaafiiciyadu ragga ugu cadcad ee masaladan tafsiiliyay ee fariisiyay way waa dhaqan diin la'aan ya faasiqnimo way dhaantadu xagee galaysaa dhaantada inay ilay xagee gali waa qaybti xaaraantayd biijmaac المسلمين دين لآن يقالنمو way waliba in la yiraahdo ninka aan la imanin muslim ma ah waa diin la'aan iyo gaalnimo in lagu yiraahdo ninkii dhaantayn waay waa wicil waa dhaweyd baa mid ogaadeen oo wadaad ayaa meeshan ka tagay isaga ii sheekay jigjigu tagay wuxuu yiri inay ileeyo baashan aafadeed ummadda dhaqanka kaga dhumaysay jooji waa diin la'aan ma banaana dhaqanka jooji buu ku yiri wuxuu yiri kaal yaa tahay xur Soomaali baan war Soomaali ma rabayata ogaadeen baan ahay ogaadeenna waa tay dhaantana waa didi wicil baatay garac ogaadeen ma tid buuri wanin dhan sheekhu saa ku leeyahay asaga baa iga sheekeeyo ii sheegay marka aafadu halkaas ay gaadhay sidii macsiyada ahaa ee dambiga ahaa ee kabiirada ahaa ee bacdu ahli cilmi ba hadii qurba laga dhigtay kugu tafsiirinayeen ee wuxuu leeyahay ninkii la iman waaya ama inkira qoonsado waa garac nasabkiisa duran yahay oo qadfi baasha li'aan waxa ka bilaaban haya asagii baa dadkii qadfay wuxuu ku arkay inaad ahayn ba adan reerkaaba u dhalanin balaya aad labada qaybood way yaan la isku khaldin hees hawleed maansa hawleed oo lagu qabsado oon si jabin lahayn oon laxan lahayn oo allaheed alla iyo balaayadan imtixaanka ah ee muusigada wadata ee laxanka wadata aafada wadata yaan la isku qasin laba kala baabo kala duwan way hawshaasi marka intaas ayaan kaga tagi lahaa kutubtu way badan yihiin raggiina dhalinyarada hal kitaab akhriya araka waa way kitaabka ila roon xagga jamciga iyo xagga baxthiga iyo shubahaadka ka jawaabidooda iyo naqliga ijmaaca iyo tahriirinta masaladaba wadaadkan Diyaab ibn Sa'd al-Ghamidi la yiraahdo kitaabkiisa way الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف وكتاب شن بقوله بيج أن كبرناه بل ولا بقول يزيد أفر بقول يزيد بيج أخرية وكتاب دقيقة علماء الحل يسنوا لا وين أي تقريدية أنت أخرية ابن باز بكمذا مركا الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف بلا جديع بكون نقدية وحكون نقدية قرضاوي وحكون نقدية الدكتور سالم الثقفي يعني ونقد علمه ولبا إذا بيسان علمنا كل سنة تقريبا إلى 8 رسالة لقوا قروان هيا ووين لكن كي أسقى إلى في عام حق مادة أصولي أي النقد أنت إنك بعضنا دكتور عبد الله عبد الله بن موسى رمضان كتاب كيسة الرد على الجذع والقرضاوي في مسألة الغناء والمعازف آخرية أصغنا ومجلة كوزن وإلى لحب قولوا بيجا مركا مسألة يعني لقوا خلطامي هدي أي باشي هستا أي هوان بصوق قلار أما أفلقادي أي صوق شو أما حماضتك اللي يقول يزنا تعريض فواحش عشق بين وحلو شيء بختك أي أمد أور سيدا أفدا يدقن حماضة أي ماشية تمادنا مرن بملا أي حارنتا مرن بتاسم ملها مركا أنت أنكو قابية كتابك أخرية مركا كتابك لما يسان هدي وحش بقى صوهر له مركا سينسكو إيمانينا ومن أحالك فقد أسندك